gaariga inta isku dhigtay laamiga labadiinaba aakhiro isla aada bal ka war adoo wheelchair ku fadhiyo dadka qaraabada ahaayo dhibaato miri fidlaan ahay kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka waayaha nolosha oo ay marti igu tahay Cambaro Cabdiqani Tigey Cambaro soo dhaw wadawaa Cabdiwali bal waxaan rabaa inta aan barnaamijka gelin inaan wax yar dadka isbarto aniga magacaygu waa Cambaro Cabdiqani Tigey warreey garwaa baan ahay midowna waa ahay labada daanba aad iyo aad noloshayda inta u badan reeg waxaan ku qaatay garow gaalkacyo waayahay bal adoo isku xiraya noloshaada ilaa bilowgii hore iyo ilaa hadda waxaan rabnaa inaad halkaad ka soo bilowday geediga nolosha inaad noo qaada dhigto haddaan ka bilaabo yaraantaydii ilmanimadaydi waxaan ku soo barbaaray baadiyaha ciidka weliba miri fidlaan ahay maanadii miri fidlaan maqli jiray waa haysaa aad iyo aad miri fidle baan ku soo barbaarnay ciideed baan nahay marka Kulanbeer anagoo abaan soo galnay magaalada oo Kulanbeer yani waxa Kulanbeer waa inaan yar aad iyo aad ha marka qiyaastii imisa jir tobneey aad iyo marka wallahi ma sha Allah nolosha baadiyahana aad bay u fiicnayd waxyaalo badan baa ka xasuustaa oo farxad leh ciyaar leh baadiyuhu ilmaha magaalada ilmaha baadiyaha ku soo kora ka activesan oo ka maskax badan waayo wuxuu helay meel faseexa uu ku ciyaaro waqtigiisa ku qaato geeda fuulka yicib gurida waliba anigu aad baan yicibta u soo guri jiray yicibta aad u isticmaali geedka yicibta waa cajiib weeye oo soo noqon doona waxa rabaa marka inaad easy wado sheekada hay marka halkaas ku soo qaadanay gaalkacyo hadda u soo gudubno gaalkacyo imaanay barashadii iyo intii kala gaalkacyaan ka sii bilownay ay sidaan noloshu ahaataba waa xilligayga qaangaarka la soo gaaray waliba da yar baa ku guursaday aad iyo dhixitoon meelahaas aan ku guursaday waay bal arrinta guurka iyo siday u dhacday iyo guurkii wiil baa soo doontay familku imaaday maanta soo baraa la yiri waa isa soo baranay waa soo aqbalay saasaa ku aqalgalnay oo guurkeena ku dhacay si qurux badan oo habsami leh oo aan waay habsha lahayn waay marka waxaan deganayn 2 sano gabadhayda ay dhalatay durad marka waxa dhacday 2 sano markaan deganayn ayaa waxa imaaday burbur qoys waa kala tagnay ninkii marka kala tagay markuu dhacay waxa dhacday ninkii waa wada tashanay aan ku iri adigu guur aniguna gabadha gurigan ku sahaynaya waay oo meesha qisadu ka bilaabanayso waay marka waxa dhacday wadaadkii xoogaa sheekada way la falxumaatay guuri maye waa deganaanayay idinku guura marka saas waan guurnay markaasna hooyo magaalada ma deganayn anigii baa sidii ku tegay oo gabadheedii yarta aad ku qaatay hooyada yar oo ilmo yara nuugayo wadataa oo ma ku sheegaa guri hadda familkii hooyo ay leedahay magaalada soo uga dhisnayn oo aan ku laabanayn ay iska dareemi kartaa duruuf ahaan iyo aqli ahaan iyo ku sheegaa waxyaalo badan baa ku xeeran aad iyo waxyaalo badan oo hadda aan suurtoobin baa markaa ka suurtoobaya markuu qofku yar yahay haddana ay mas'uuliyadii saaran tahay waay marka waxa dhacday family-ga qayb kamid ama u tagnay dhowr bari baan la joognay dhowr bari markaa la joognay family-kii caqabad baa haddana ka imaatay oo dadku ma jecla qof ilmo wata oo lamaana ah ma jecla dadku ma soo dhaweyn karaan waay alaab inta badan sida wada ognahay waay marka mar hadda dulsaar noqotayna caqabadu dhamaanayso waa marka qofkii xaafadda u weynaa
isla markaa waxa arkay ilmaha caanihiisa miyaa qasatay caanihii isaga qaldamay kuwii anigu aan watay ku iyagu wateen marka waxa uu qabaa inaan aniga ilmaha caan u wadan marka waxa laga sii fikirayaa culayska ka imaan kara imaanshahayga joogitaankaaga way marka waxa dhacday caanihii ilmaha iga qasan iyo makuushaga waxaan dareemay uu meesha buuq ka soo socdo way buuqii anoo la walwalsan oo isla dee waa kan xaafaddu si fiican kuma soo dhaweyni xal way ayaa waxa dhacday gabar aan ilma abtinahay ilma eedo nahay ana aabahay baa abti u ah way marka baa is aragna marka waa is wareysanayoo ka waran xaaladda tiriyo weyna iga weyneen in badan way markaan is wareysanay maxaad hadda qabanaysaa bay tiri maadaama haddii ilmo yarna aad wadatid reerna aad dul saaran tahay maxaa kugu qorshaysan marka waxaan ku yidhi lacag yar baan haystaa waxaan rabaa meherad yara inaan iska furto oo aan ilmahayga iyo halkaas wax isaga celceshino marka waxay tiri okay aniga ruuxaygu waa rabay anaa ma kuu sheegaa ana ciyaal baan haystaa marka noo imow oo waxaad samaysaa in wax isku darsano midaanba gelin meesha hashido hayaba ariyaad baa ugu farxa qofka weyn oo walaalka ah oo ku le aynu isgarabsano waa wax lagu farxo marka waan ku farxay hayaba ku yiri waa u tagay lacagtii 500 baan u dhiibay 500 marka u dhiibay gabadhii de iska suuqay la gashay lacagtii waa meel bay noo soo kireynaya intay tiri iyo meherad ana inoo soo habeynaya suuqeeday la gashay lacagtii bay suuqa la gashay ha way lacagtii uu dhowr bari 4 bari 5 bari markay meermeer ku jirtay baan dareemay inay wax jiraan wixii baan gabadha maxaa dhacay oo see wax u jiraano markaas waxay tiri walaal aniga lacagta waa igu baxday meeshiina waa waayay inoo soo kireyn lahaa lacagtiina waa igu baxday waana lacagtii intii yareedo aad ka haysatay waa intii yareedo irsaaqadba ka haystay marka waxa dhacday meeshii buuq baa ka dhashay buuq markuu dhashay wiilal walaalaheeda baan soo dhex galay wiilash markaan soo dhex galeen waa lacagta kugu baxday baa liir haabay tir lacagta ma qabtaa baa liir haabay waa xadsadeen markaas aniga bay yeereen waxay dhaheen abti waxaad samaysaa lacagta 200 madaxeena ku caf 300 waa ku raadinaynaa labada bilood oo soo socota baanu labada 150 ku soo dirayna hadda ayr ma diidaa liir anigii hayaba iri maadaama waxa awal ka baqayay inaan waxba laysiin laakiin tii qayb la ii soo ceshay waa caymis aadiya waayahay waan ku iriyo lacagtii ii soo ceshay 300 bay adu labadii bil isiiyeen sidii aan nolosheeda ku wataa waxa dhacday wiil asnaan qaraabanaha waxa ka dhimatay xaaskii tacsidii ayaa aaday anoo tacsidii jooga waxa dhacday anoo tacsidii jooga ayaa waxa noo imaatay wiilka gabadhu ka dhibatay walaashiis oo ayada family aan hayagana marka waxay tiri maadaama dadku ay laamanayaan in alaabta iyo ila dhaqo oo weelka ila dhaqo dadku way naga laamanayaan ila joog adigu marka oo xaafadeena imow gabadha yarta soo kaxayso marka hayabaan ku iri xaafadii baan tagnay xaafadii marka tagnay muddo bil ku dhow adigu 20 bari marka meelaha joognay waxa isoo dhacday lacag yar oo ilmaha caanihiisa $20 meelahaas oo kale marka maamadii waxay tiri anagoo wada fadhina habar yaray korontadii bihi baa nala ku leeyahay biilkina uu naga daay bisha 10keeda ka sokay noo soo dhici maayo marka $20 korontadii biyaha inooga sii bixi anna waxaad samaynayaa markii la gaaray biilku noo soo dhaco shoobin iyo xoogaa ayaan kugu darayaa gabadha yartaana caanaha inaga iyo waxa ahayn inaga wax isku jacbursanayna hayaba iri marka qaarkeed daacadnimadu inay kula talax tagto ma fiicna shalayna lacag ba laga dhacay marka waxa dhacday hayaba iri aduu dhowr bari markay sheekadii sidii maamadii lacagta iimay soo celin iimay soo dirin lacagta waa u soo dhacday laakiin noomay soo dirin waana gabadha caanaheeda ogow wax kale uma hayay gabadha
أنا مركا إنوجيسة لبا سنة سي جلسة سي عجينسة واي ويضنا هدي سن فقبضن إيو كورقب تربضن إيه إلالين إيه تشيك من أي سن نفط هذا عن لسين وما يلانس أنا عافمات قوي عانت يلا المها وما يلانس واي مركا واحد عضي إن وأسقط القلال ويضي المه هذه واحد عضي قبردي سا قارة هيد قبده يريرو إن ما بوجوه قبده يركع قبردي بقى يقدلان makuusha aniga gabadha saa hadii la iga taabto fudayd bay igu jiray maadaama duucil yar iska ahay waxaan u qabaa hadii saa wax ugu dhacaan ba inay dhibaato weyn gaarayaan wixii baa gabadheerta markay gabadha igala juuq dhahaan oo iga dilaan qooma gala gabadhi baa la iga dilay buuq baa dhaliya gabadhan iga cila habar yar cabasho maamadii baa waxay tiri maanday aan ku warku sheego gabdhaha gurigooda adaa ugu imaaday adoo soconaya ugu imaatay هدينا إسفهم إن هذا وجود القاضين دبتوضة كجور وليه حتى كجور حتى اسم فهم إنسان كجور واي وهل صاع أو همين نبى اللي بتشرع واي ما لا أجور ما قرنا يو حافظا كل عطا ما قرنا يو مجال هذا آد مكلا أقاني ما يربع دبر كوسيتا لعقتي بتشات waxaan ku yiri waa baxayaay waa man iska baxayaay lacagtayda yareed ii diraan bachat ku raacay qaadi kara gabadhe marka waxay tiri lacagta cirka intuu ku jiro bay ku jirtaa labana arkay lacag la diray ma bala xagee ka soo noqonaysa lacagtii ana wali ma helin lacag marka iska lacagta ma joogtay tiri wixii hada hadalka ku soo celceliyana awood waalidnimo iyo adeegsato waxay tiri deetimaha kale ijiid قالت تمها إيجيد بيتي لا سكر إيجا سو ساري ميسيده تمها إيجيد واقع أن ده قف إلى سمن هذا هي تمها هو بتشيد لها لكن إلى ما صرنا قف والدي يقول بيجان مركم حسري أنت كافافين لها دبعته فرها وقالوا حاجة أضو سكده هذا بعيد إذا كان قصبني ده عدني من هذا صار كوسة ما يسوي كذا عماس الكعبة وقار ها قبل يرتاح واقعتي jidka markaan marayo ayaa waxa dhacday waa fikiray laamiga agtiisa anoo fadhiya meel laami ama saan noogu imaa jidka dheer gaalkacyo saas aan gabadheerta baa dhabta ku qabsaday waa fikiray waxaan siri hadda gurigana ka soo baxday ilmihi yarka hana waa sidataa xageed qabataa xageed qabanaysaa ma asir iskaxda way iska dhib badan tahay markuu buuqu ka bato aadiya oo ma ku sheegaa dhowr dhibaato kugu dhacaan maskaxdu way isku dhex wareeraysaa marba jahay ku qaadaysaa yaraantuna fudayd bay leedahay marka waxa dhacday isla markiiba maskaxda waxay i tustay adduunkan adiga gabadhaadu israaca ana israaca oo see gaariga inta isku dhigtay laamiga labadiinaba aakhiro isla aada waa istishaan ba isdilaha marka maskaxda aan saa ku fikiray isla markiiba haddana maskaxda waxay igu soo celisay bal ka waran haddii gabadha yarta kaliya ay dhimato adiguna ay dhaawacantid ila labada naf adigu ma haysidin say u baxayaan adigu go'aamin maysid haddaad damacdo inaad isla dhimataan oo ay keligeed noloshii adiga aad keliga ku noqotid aad ka wada cararayseen oo haddana gaariga uu dhaawac kaaga tago ku burburiyo adoo caafimaad qabaa hadda waxaad ka walwalaysaa si aad u noolaan lahayd bal ka waran adoo wiilshir ku fadhiyo dadka qaraabada ahaayo dhibaatada kala kulantay xilliga ku soo saaray qofba qof ku dhiibayo isla markiiba haddana waxaan sireen bal hadday adiga kaliya aad dhimatid oo gaarigu ku maro inanta yarna ay badbaado oo nolosha adigu aad ka tagaysay inanta yareed ku soo hadhar rajanimo oo adoo weyn ay u dulqaadan weyday bal ka leedahay haddana maskaxdayda igu soo celisay adoo waxay saa ahaataba isla markiiba maskaxdu waxay ku fikirtay inaana hadda falkaa ku dhaqaaqin oo wax kastaba ay dhici karaan aan bal xal kala gaaro meesha anoo fadhiya baan waxaan ku fikiray xero yara oo ari oo meel luuqa ku taalla oo aan ari hadda lagu xarayn laakiin ariga lagu xarayn jiray waxaan isiri xerada iska gal adiga gabadhaada xerada iska gal xeradii markaan galay haddana waxaan isiri bal hadday nimaga cabtooyda ah iyo tuugadu intay gabadhaada oohinteeda maqlaan intay meesha kugu soo galaan adiga gabadhaaba dhibaato idiin geystaan ka waran
واي haddana meel loo dhaafo ma leh hadda nafta waa iska adkaysato waxay tiri tan meel loo dhaafo ma leh hadday qadartaasi dhacdo way dhacday ma dhib baa dhib ka fiican meeshaada waa inaad ku jirtaa xeradii ariga gashay xerada arigan gala hay aniga gabadheedii yartaa dhabta ku qabsaday xerada arigan galay xerada ariga markaan galay hameenkii dhan waa fikirayay waxaa ku dul fikirayay gabadhii yarta ahayd ilma iga quminaysay aniga markaa ilmadeyda ma kontrooli karin waay gabadha yartaa waa qoysay saas igu dul deganaysaa hay marxalad baa ka sheekeynaysaa haa waay waxa kaaga daran xeradu waa kulayl xilliguna waa xilli aad u kulul waay xeradu waa kulayl ilmaha yarkaa meel aan seexiya ma laho aagoo dhan qodxo iyo hiil baa ku taalla waay samboorna waa qabaa waay marka samboorkii iyo ilmadii gabadha yarta ahaydoo dhidida soo dhabta iiga fadhida waxaa qoynaya ilmadaydii iyo duufkii iyo balqankii iyo wixii baa saa u qoynaya wixii waagaa noo bariyay inagoo meeshii ku jirnaa waagu noo bariyay laakiin waxa go-aan ku gaaray inaan boosaaso aado maadaama ay shaqooyin kana shaqo badan tahay kana fursad badan tahay boosaasana ma tegin anigu markaas dhegtaa ka maqli jiray waa maqlaa laakiin boosaaso markaas waxaan ku fikiraya inay meel oo dadka dhan shaqo ka heli karaan ay tahay waxa dhacday hameenkii waxaan ku fikiray inaan boosaaso iska aado hadaa ma kuu sheega aan bal aado aan xaaladda halkaas soo qiimeeyo gabadhaydana aan qaato waagu markuu bariyay ayaa waxaa dhacday waxaan tegay astaanka yani meesha astaanta gaariyaashu ay ka baxaan boosaaso baan tegey yar gaari xamuula watay baan u tegey waxaan ku yidhi boosaasaan u socdaa goormaa baxaysaa baar kadib baan baxayaa buu igu yidhi hal saac meelahaasaan baxayaa marka boosaasaan u socdaa ma ku idhi lacag maxaa haysataa buu igu yidhi lacag $8 baan ka haystaa ma ku idhi $8 xagee keen $8 way aduu lacag yar oo harharaadiyo ii harhadhay oo yar oo bay ahayd oo waxyaalihii hore ka harharay aan ku ilaalinayay wixii gabadha rootigeeda iyo waxaasaan ku ilaalisanay bay ahayd marka waxaan idhi olol $8 baan haystaa 15 baa lagu raacaa buu yidhi haddaa adiga kuu naxariisto markaasaan waxaan ku yidhi ma haysto walaalow waana u baahanahay inaa ikahaysid suu yahaye waxaa imaataa anaa kusoo wacaya markaan baxayno marka meherad baan iska fariistay gabadheedii meherad baan iskala fariistay sidii baan u qatarnahay ilaa iyo hameenkii iyo subaxdii sidii baan u qatarna aniga gabadhaydu marka waxa dhacday wuxuu yidhi waa idin qaadayaa iska sii fariista meel baan iska sii fariisanay xilligii markii la gaaray wuu soo wacay una qaaday jidka markaas sii marna wuxuu igu yidhi wuxuu arkay inaana degdeganayno aana qadaynayno aana ilmaha wax u dalbayno buu arka marka wuxuu yidhi walaale maxaa gabadha yartaa wax siiyo degto oo wax sii markaasaan ku yidhi 8 adiga kugu soo raacay keliyaaba haystaa maxaan siiyaa baan ku idhi marka wiilka wuxuu yidhi okay 8 aadana iska hayso $3 anaa kuu diraya gabadha yartaa wax sii aadna quraacday waa dareemi kartaa qofka marka daruufi ka muuqato qofkii wax aqrin kara wuu fahmi karaa uma baahna inaa u sharaxdid ama aad tiraahid saasaan ahay iyo inaa hadashid midna oo looma baahna qofku wax aqrin karo wajigaaga aqrin karo wuu dareemi karaa marka wuxuu yidhi anaa $3 qaado 8 aadana iska hayso marka buurtinaa sii marana marka ilmaha yarkaana wax sii maadaama gabadha yarta ay ooyeyso marka waxaan dhacday waan deganay gabadha yarta waan quraacnay $3 wiilkuna siin waan ku quraacnay waa tagnay boosaasaan tagnay wuxuu u waraystay marka maxaa idinku dhacay ma tahriibi rabtaan si wuxuu jiraan buu yidhi marka waa uga dhacay wixii dhan baa uga dhacay si wuxuu jiraan marka wuxuu yidhi maadaama magaalada aada dadka aqoon hadda u socotid qof haddaan kuu geeyo intaa shaqo raadsanaysid qofaa kusii degataan ma kuu geeyaa buu igu yidhi haa baan ku yidhi ii gee baan ku yidhi walaal marka wuu ii geeyey gabadh buu ii geeyey way is yaqaaneen wixii gabadhan shaqi magaalada ka raadsanaysaa ilmo yarna way wadataa gabadha yartaa ka hay walaal intay shaqo raadsanayso gabadha yartaa u sii hay reer fiican buu ii noqday wiil fiican buu noqday maasha allah caawiyey oo dee qofka hadduu ku caawiyo wax yarna allaha ka dhigee abaalkiisa waa u haynaysaa dee miisaanka aakhirana waa way u fuulaysaa marka gabadha yar tahayd baa layga sii reebaa maalintii shaqa aadaa
waa raadiyaa shaqan soo raadiyaa qofka u tagtay waxa kaaga daran qofkii aad shaqo u raadsatay oo tiraahdo shaqan u baahanahay haddaad tiraahdo ilmaha wataa ma ku qabanayaan ma ku qabanayaan waxay ku oranayaan nooma shaqayn karta haddaa ilmo wadatid marka hore way ku aqbalayaan laakiin marka tiraahdo ilmo yar baan wataa waxay ku leeyihiin walaal naga wareeji annagu kuwii ilmaha wadan baaba isku dhibanahay marka aduu markii u dambeysay maamo dukaan rabta in loo gado baan is aragnay waxaan ku yidhi waa u dan sheegtay kuli magaalada ma kala aqaani ilmo yar baan wataa hadday shaqo ma kuu sheega shaqada inay siisid baa u baahanahay maadaama dee aad tiri dukaanka anigu dukaanka rabaa in la ii gado marka dukaan bay haysatay weyn oo fiican marka waxay tiri maadaama dee wallaahi horta qof ilmo wata ma shaqayn kara bay tiri oo dhibtiisu leeyahay laakiin dee maadaama ma kuu sheega aad dan sheegatay iska soo qaado hooyo oo gabadhaada iska soo qaado dee alaabtii iga daadaadin oo ma raba inay alaabtii iga daadaadiso oo iga waxaysto waxaan rabaa inay dukaankana gedid 3 saacana aad dheelmataan marka waa ka fursad bay ku siisay fursad oo iska fiican bay siisay ka waran dareenkaad u hayso maamadii maalinta fursad ku siisay ma wallaahi waaba waxyaalaha waxay ka mid tahay aan mar kasta xasuusto wiilka maamada waxay ka mid tahay waxyaalaha aan xasuusto oo aadka waayahaagii nolosha ka mid ka mid qaatay ridii aan ka geli lahaa fursadda bay ii noqdeen labadooduba marka waxa dhacday maamadii waan isqaabilnay waa isbaranay ilmihii ma kuu sheegaaye meeshii way aragtay gabadhaada ma dhibadno oo maasha allah bay igu tiri saasaabad ku fiican tahay gabadhaada intaysa dhibadnayne markay aragtay dhowr maalin marka u shaqaynayna waa lagu fiirinayaa bal inaa ilmuhu rabsho badan yahay iyo waa dee way iska kajiikimiyaa qofka marka maamada waxay tiri maasha allah cunugtaada ilaahay baaba kuu hadiyeeyey eedamada ay dhib badne meeshay isaga ka ciyaaraysaa marka shaqadii baan iska watay shaqadii haddaa iska watay waxa dhacday xoogaa lacaga 3 bilood meelaha markaan u shaqaynayay lacag tiirada aan ugu shaqaynayay intaan ururiyay baan waxaan ku soo gaday dhuxul baan ku soo gaday dukaankii irkiisa baa dhuxushi ku soo gadiyay way ii gadmatay mar kale aan soo gadiyay labada shaqaba waa isku wataa gabadha haynteedii dukaanka gadistiisii xisaabintiisii iyo dhuxushii iibkeedii intaba waa isku wataa marka halkaan markay kasoo bilaamatay meesheenii baan iska sii wadanay adugu muddo 6 bilood ah markaan joognay oo xaaladdu noo fiican tahay guri yar baan kireystay oo meesha u dhow maadaama maamada dee xaafadeeda maana aadin guri qol yar baan soo kireystay yani qol gooni adig marka waa isku filnaatay waa xoogaa waxaan dareemayaa inaan ma kuu sheegaa soo fiicnaan rabo baan dareemayaa laakiin dee ma haysatid maacuun waxa ku gadatid joodari waxa ku soo gadatid hal joodari baa iska soo qaatay marka waxaynana waa iska soo qabsanaa maadaama loo baahan yahay wax tiro badan maacuun waxa cunto wax kasta qarashkii aad isku ilaalin lahayd waxay kaaga baxaysaa biilkaagii wax yar baa maalintii soo qaataa adigu waxayga yar waa isku celceshiday gabadha yartaa waa iisii xoogaa kortay marka halkaa markii maraysay 6 bilood baa la gaaray kulaylihii baa soo galay kulaylkii bay cunugtii yartahay la qabsan weyday maadaama cimilo degan laga keenay cimiladii qabowgana marka hore aan keenay markii cimilo kulayl ay gashay isbedel baa ku dhacay cunugtii yartaa waa iga xanuunsatay amadina waxay tiri waa xagaa baxaynaa markii dukaanka waxaan usii dhiibanayaa wiil yar baan usii dhiibanayaa igu tiri oo faamilka maadaama anigu joogo qofka shaqaalaha iyo annagu waa isku xiranna laakiin mar haddaan anigu xagaa baxayo qof wiil baa u dhiibanayaa igu tiri marka waan soo xagaa baxnay waxaan soo aadnay buurtinlaan soo aadnay buurtinlaan markaan soo aadnay waxaan yarka ahaa isku tacbursanay dhuxushina waan ka ganacsadaa adugu markaas lacag adugu $1,000 ama 1,000 iyo dhowr ah baan urursada maasha allah marka buurtinlaan aadnay buurtinlihii waxaan u tagnay maamo eedada aan u tagay oo buurtinla degan oo si sheegay waxaan ku waa soo xagaa baxaya marka hay'abay tiri buurtinlaa u tagnay waa la joognay dhowr bilood baan la joognay waxaan waa ka sii gudubnay haddana baadiyaha roob ka da'ay baan waqti ku soo qaadanay ayaan waa ka soo laabanay garawaan ku soo laaban garawa halka nolosha ka bilow garawaanka nolosha stepka saddexaad garawaanka bilow bal ka waran noloshaas markaad soo marday adag maxay ku bartay wallaahi noloshu waxay ku baraysaa inaad qof kasta ku kalsoonaan ciduu rabaha noqdo waxaan hooyada ahayn inaad ku kalsoonaan oo aadan naftaada wada agdhigin
aad qarashkaaga ku wada bixin ma kuu sheegaa feejignaan adoo daacad ah oo daacad aysan kaa wada guurin haddana inaad feejignaan ku dartid waa casharka aan ka bartay waxa kaloo ka bartay inaan wax badan akhrin karo intaanan wixii ku dhaqaaqin inaan wixii daraasayn karo akhrin karo ma kuu sheegaaye maxaa u sababaynaysaa caqabadaha kugu dhacay marka caqabadaha waxaa ka mid ah inuu qofkii isagii yar gabadhii iyadii yar inay guurkii ku degdegto oo ay guursato kadibna iyadii ay lamaano noqoto maadaama dumarku waa warshad gabdhuhu waa qasab way tarmayaan marka maadaama yaraan qofkii ku guursaday haddana aad tarantay oo ilaahay lamaano kaa dhigay oo qoysku burburay yaraantii iyo mas'uuliyad darradii baa anigii igu soo farabaxsatay la rabay mas'uuliyaddii la rabay in aniga layla qaybsado ayaa igu soo farabaxsatay anigu haddaan naag shaqaysato oo caqligeeda 25 jir oo isku filan haddaan ahaan lahaa ama sidaa maanta kale ahayoo kale haddaan ahaan lahaa oo ilmo igu soo biiro culaysna iguma noqoteen laakiin culaysku wuxuu ka dhashay cunug yar oo iyada la rabay in mas'uul laga noqdo oo ma ku sheegaa iyadii mas'uul la'aan ku soo dhacday haddana ilmo iyadii mas'uul ka sii noqotay way cambaroy markii halka marayso guurka maadaama aad kala kulantay caqabadaas aad iyo aad bal ka waran mar kale ma isku dayday noloshii mar hadday maya mar kale iskama dayin ma waxa la is oran karaa cabsi baad ka qaaday inaad noloshii guurka cabsi kama qaadin walow ay fiican tahay qofku inuusan markasta degdegin haddana cabsi kama qaadin oo dadku isku mid ma ah laakiin waxaan focuska saaray intaan guur ku mashquuli lahaa inaan naftayda dhiso aqoontaydii sii heerkii kala sii wato gabadhayda yartahay aqoonteeda iyo barbaarinteeda aan sii wato si ilmaha yarka uu u helo fursad uu ku koro oo wax ku barto waxaan focuska saaray korinta gabadha iyo in aniga aqoontayda iyo shaqsi ahaantayda iyo cilmi iyo wax kasta anigu aan iska dhiso shaqsi ahaantayda mashquulkaas aanba ila tego aad iyo aad waxa jira cambaroy inta badan qof xaaladdu ku adag tahay haddana eheladiisa ama qaraabadiisu ay tahay dad dhaqaale fiican haysta aad iyo aad laga yaabo mararka qaybtood fadhi ku dirashada inaan aragno dad ku faana aad iyo aad annaga shirkad hebel baan leenahay bal ka waran markaad isbarbarto adiga iyo wallahi Cabdiwali oo aniga family ahaan waxa ka soo jeeda reer ladan markii gaar ahaan markii laga soo tago familka kore aniga familkayga hoose adeeraday iyo dooyinkay familka igu xiran oo aniga dad ahaan igu dhow dad aad u ladan oo ma ku sheegaa dadkaas oo kale waxay ahaan lahaayeen dadkii inta jilicsanna kor u soo qaada ma ku sheegaa inta heerka joogtana ismu kulsato oo ay midaysan tahay marka midaysan waxa isku weydeen adiga marka maadaama anigu inan yar iska ahaa oo aan dadkoo dhan lambaradooda hayn oo aan contact la lahayn iyaguna dee qofku markuu ilmo yar yahay codkiisa lama maqlayo inta badan markii qofku yar yahay haduusan dadka wacwicin asagoo oo raadin lama maqlayo codkiisa hoose cidna maqli mayso waxaan lamid ahaa codkaygu cod ceel kasoo dhexyeeraya oo codkaygu lamid ahaa marka ceelka codka kasoo hoos yeeraya waxaa maqli karaa dad taxadar hore lahaa oo ma ku sheegaa sirraysay waalidkooda qaraab xiriirinta codka dadkaas oo kala maqli karo qof kasta ma maqli karo marka caqabadaha dhacay sidaas ay kamid ahaayeen oo anigana aan garabka aan isleeyahay waxa garabka u weyday ama lagu arki waayay waa codkayga gaaban iyo ku talagal de macnaheedu qofku wuxuu ku talagalay waa la maqli karaa waayahay barnaamijka waayaha nolosha intaasan ku soo koobaynaa cambaro waxaa jira barnaamijyo badan oo ku saabsan arrimaha qoyska iyo nolosha aan rabno inaan mar kale ka wareysano haddii aan la yiraahdo intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeena